بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا برنامجكي كونتن إيا كوباد guurka iyo axkaamtiisa guusha qoyska liibaanta qoyska farxadda qoyska faa'iidooyinka guurka inta baan uga hadlaynay casharkeenii hore waxaan kusoo faahfaahinay ama kusoo kala dhigdhignay sababaha loo baneeyey xaasas badan in la guursado waxaan soo sheegnay ilaahay khalqigiisa asagaa ka og xigmadda marka ilaa 20 qodob oo mid kastaahi keenaya xaasas badan guurkooda ayaan ka soo sheekaynay casharkan maantay waxaan kaga sheekay doonaa dhowr mas'alo muhiim ah xaasaska badan ee la baneeyey shuruudda loo xiray ayaan ka bilaabi doonaa casharka waxaan ka hadli doonaa dadka ama dowladaha diiday xaasaska badan dhibaatooyinka caafimaad iyo akhlaaqeed ay la kulmeen waxaan ka hadli doonaa dadka xaasaska badan guurkooda wax ka sheegay ee diinta islaamka wax ku caayay sida loogu jawaabay waxaan ka hadli doonaa inaysan ahayn islaamka kaliya cidda arintaas oo xaasaska badana taqaana waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala reer galbeedka dad badan oo ka mida oo gaar ahaan oo weliba dumar iyo ku jiraan oo qoraayaal ah oo yacni caddeeyey xaasaska badan faa'iidada ay leeyihiin iyo inaan laga maarmin waxaan insha allahu tacaala ka hadli doonaa haddii waqtigu noo saamaxo su-aal kale oo ah xaasas badan maxaa ninka loogu baneeyey gabadhii niman badan loogu baney waayey su-aalahaasoo dhan insha allahu tacala ka hadli doono haddaan casharkeenna ka bilowno ilaahay subxaanahu watacaala marka uu jideeyay xaasas badan guurkooda iskama uusan idlaaqin oo lama dhihin iska guursa intaa rabtid shuruud adag ayaa lagu xiray shuruuddaas waxaa ka mid ah in oo tawfiiru lcadli bayna azawjaat in cadaalad la helo oo labada xaas labo iyo saddex ka badan wuxuu uu qababa cadaalad in la helo cadaaladaas iyo xaasaska loo sameeyo muxaadarada insha allah soo socotaan ku faahfaahi doonaa oo keligeed ka dhigi doonaa marka ilaahay ma dhihin guursada kaliyaha wuxuu cadaaladu ku xiray markaasuu aayadda ilaahay wuxuu ku yiri fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum dhalika adnaa anlaa tacuuluu haddii aad ka baqaysaan in aadnan cadaalad samayn hal xaba guursada ama waqtigii addoomaha la haystay wixii addoomihii taas ayaana ilaahay wuxuu le u dhow inaadnan jawr iyo xadgudub aadna samayn waa meel kalean ku faahfaahi doonaa cadaaladaas qodobka shardiga labaadoo loo xiro waxa weeye alqudratu cala alinfaaq xaasaska badanuu guursanayo inuu qofkii awoodo biilkoodii inuu awoodo uma banaana qofkii inuu xaasas badan iska guursado asagoo hal xaba biilkeeda awooda inta kalena uusan biilkooda awoodin nabigu waa kale calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj war dadka dhalinyarada ahow qofkii adinka idinka mid aho baa'adii awoodo baa'ada biilkii iyo nafaqadii ku jira ha guursado ilaahayna uu leeyahay walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ha dhowrsadeen kuwa aan helayn qarashka ay ku guursa lahayn ilaa ilaahay fadligiisa uu ku deeqo shardiga saddexaad waxa weeye in uu ruuxii uu aamin ka yahay in uu ku fidnoobo xaasaskan faraha badan ee haddii xaasas fara badan uu guursado awlaad badan dhalato haddii uu og yahay diinkiisii inuu ka fidnoobayo cibaadadii uu ka tagayo waxa weeye markaas looma ogolo an ya'mana calaa nafsihi liftitaan bihina wa tadyiici xuquuqillaahi bisababihina hadduu ka baqayo inuu yacni uu ku fidnoobo oo uu xuquuqdii ilaahay iyo waajibaadkii dayaco markaas looma ogolo xaasas badan markaasaa ilahay wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum war dadka muuminiinta ahow xaasaskiina waxaa ka mida iyo awlaadiina kuwa cadow idin ah ee isjira marka iska jira kuwaas marka lama dhihin kulligood ee waxaa ka mid aha layiri markaasaa imaamu mujaahid tafsiirkiisa markuu aayaddaas sharxaya wuxuu yiri qof adinka idinka mida ayaa jacaylka xaaskiisa iyo ilmihiisa uu u qabaahi waxay ku keenayaan oo ku xambaarayaan qaraabadii inuu gooyo rabbi inuu caasiyo markaasuusa awoodayn xataa
inuu ayaga war ka diido wax kasta oo xumaana u ku adeecaya, taas waa khatar. shardiga afraad ee loo xiray xaasaska badan qofku markuu guursanayo waxa weeye an yakuuna cindahu alqudratu calaa icfaafihina wa taxsiinihina, inuu qofkaani awoodo inuu xaasas badan hadduu guursado inuu dhowro yacni xaggii galmadii iyo gogashii inuu awood u leeyahay gabdhahaasi inaysan wax kale u baahan oo uu yacni shahwadii iyo uusan ku dayicin ee uu yahay qof karaya xaasaskaas inuu u galmoodo isagoo hal xaba la dhiban haddii uu yidhah waa iska gurguursanayaa ma laga yeelay. xadiidka nabiga man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj, baa'adaas macaanideeda waxaa ka mid a gogashii inuu awoodayo yacni galmadii. shuruuddaas marka si kooban afartaa shardi waxay ka mid yihiin shuruudda loo xiray xaasas badan qofka guursanaya. hadda waxaan ka hadlaynaa dhibaatada iyo waxyaalaha ka dhashay dadka diiday ama dowladaha diiday xaasas badan guurkooda. waxyaalo fara badana ka dhashay. waxyaalahaas ka dhashay waxaa ka mid ah in fisqigii uu ballaarto, fisqiga faafay, faajirnimadkii iyo macaasidii ay faaftay, dumarka jirkooda ka ganacsada inay aada u bateen oo ka bateen xataa kuwa guursaday dowladaha qaarkood. in ay qodobka labaad oo waxaa ka mid a in ay owlaad fara badan ay dhalatay oo sharci darro ah oo aan aabba lahayn, ama ha ku dhasheen habeen la isla seexday, ama ha ku dhasheen gaal fareen iyo boy fareen wax oo dhex maray, waxaasoo dhan waxay xisaaban yihiin zino. waxaa ka mid a waxyaalaha ka dhashay xaasaska badan dadka diiday in ay faafeen cudurro fara badan oo khatar oo dila ah oo ka mid a kuwo jirkii ku dhacaya, kuwo maskaxdii ku dhacaya, waxyaalo fara badana ka dhashay. waxaa ka mid a waxyaalaha ka dhashay cudurrada ka dhashay iyo halista ka dhashay dhibaatooyin ka dhalatay dadka guurka fara badan dowladaha diiday in oo ay dhalatay arrimo fara badan oo qaraabo goysnimo ah oo aan la isku aaba yeelano xiriirka uu dhalanay. maxaa yeele markii gabadhan ninku uu guursado ayadii owlaadeedii aabbuu u yahay, dadkii ayada ay ka dhalatay qaraabay la noqonayaan iyo xidid, ayada ninkeeda dadkii uu ka dhashay xidid ay la noqonayaan. laakiin labadan gogol dhaafka iskugu tagtay, caruurtii ka dhalatay ninku shaqo kuma leh oo waxa weeye aabba iyo uma noqonayo, waa u go-an yihiin. ayada qaraabadeedii shaqo kuma leh, ayadoo isaga qaraabadiisa shaqo kuma leh. waxaasoo dhan iyo bulshadii oo akhlaaqdeedii ay baaba-ayso. waxaa ka mid ah nasabkii iyo abtiriskii oo lumay oo waxa weeye owlaadaasi aysa wax abtirisa iyo midna aysa lahayn. waxyaalahaasoo dhan waxa weeye waxyaala ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay. sidaa darteed ilaahay maadaama khalqigiisa maslaxadooda uu ka og yahay wuxuu jideeyey guurkiina in la badiyo haddii baahi ay keento. markastaba baahida shardiya, haddii baahi ay keento ninkii inuu xaas kala guursado. haddaba waxaan ka hadli doonaa ilaahay waa uu jideeya nir xaasas badan in la guursado, laakiin shuruud adagaa lagu xiray. dadka ku andacooda oo yidhaahda xaasaska faraha badan waxay kasoo horjeedaan yacni nidaamka saxda ah, radiska iyo loo jawaabay ayaan ka hadli doonaa. waxaan ka hadlaynaa dadka diidan xaasas fara badan ama 3 4 xaas ama 2 xaas in la guursado, xuquuqdoodiina la siiyo, haddana ayagu hal xaas inta haysta boqolaal kale u galmoonaya oo ama saaxiibtinimo iyo gaal fareen ugu galmoonaya ama ugu galmoonaya gogol dhaaf la tumanaya ee aan midkoodna xuquuq lahayn, ilmo ku raraya, aan yacni wax xiriira la samaynin. kuwaas aan ka hadli doonaa. haddaan jawaabaha la siiyey aan u gudubno, marka koobaad waxaa isweydiin mudan adduunka ma ka dhacday bilow iyo inta hadda ilaa hadda waqtigeenan adduunka ma la soo maray hal ummad ma soo martay oo raggu ummaddaas yacni ay raggooda oo dhan ay hal xaas ku kaaftoomeen ayagoo maaragtay ama aan guursanayn xaasas badan ama aan si sharci darra ugu galmoonayn? ma soo marta adduunka? ma soo marin. taariikhduna ma sheegin yacni oo koonkan kama soo dhicin adduunka horay ilaa hadda dad oo ninku uusan hal xaas uusan dhaafayn raggoo dhan. yani markii la eegay yani kama wadno in shaksi kastahay uu xaasas badan la kulmay, yacni dadka qeyb ka mid ah ayagoo yani raggoo dhan aan hal nina hal xaas dhaafin adduunka ma soo marto? maya, ma soo marin taas. su-aasha kale oo waxa weeye isweydiinta mudan, hadda dadka reer galbeedka ama yurubiyanka ha ahaadeen ama maraykan ha ahaadeen ama mustashriqiintii ha ahaadeena, su-aasha kaleoo la weydii karaa waxa weeye ma jirtaa in ma la helayaa hal dowlad oo dowladahaas reer galbeedka ka mida
ee raggeedu ay hal xaas ku ekaystaan raggoodoo dhan oo aan aysan gogol dhaaf kale ama gaalfareen ama maaragtay wax kale oo aysan samaynan oo halkaas xaas bilow ilaa dhammaad aysan meel kale ka fiirinoon khayaanin ma jirta taasina waa xaqiiqo. duruufo badan oo markaas gabadhii ku yimaada ayagoo ha ahaata gabadhii ama xanuunsato ama caadadii qabta ama dhasha ama walaacdoon rabin ninkii ama duruuf rabta noqotee marka ay ku yimaadaan waxaa laga yaabaa inay gogol dhaaf kala sameeyaan, inay gaal fareen samaystaan ayadoo gabadhi xataa diyaarahoo ninkeedii u diyaaraba inay xataa hoos ay naaga kala socdaan ayaa dhacda. marka taas waxa weeye waa been cad oo maaragtay iska cad. haddaba haddaan soo qaadano shubahaadka marka hore iyo waxyaalaha ay islaamka ku dhaliilaan oo ay sheegtaan haddii aan soo qaadano, ilaahay subxaana watacaala horta maslaxada ayaa asaga naga og in oo gabadhii ay nin guursato ilmana ay u dhasho, ilmahaasina tarbiyo fiican helaanoo labadii waalid isla barbaarsadaan, ilmahaasi aabba iyo hooyo dhexdood ku koraan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala jideeyey. laakiin dad fara badan ayaa arintaas wax ka sheegay. ilaahayna guurkaas faraha badan marka uu jidaynaya waxaan soo sheegnay xigmooyin fara badan oo ay ka mid tahay inuu dhowritaan ninka iyo xaaskaba u yahay, inuu ummadda badinteedii faa'iido u yahay, in maaragtay uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku faanayo oo ummadda badata waxyaalahaas. laakiin dadkan shubahaadka iyo waxyaalaha ay islaamka ku dureena marka hore soo qaadanaynaa, kabacdina jawaabaha laga bixiyaan xabad xabad u sheegi doonaa. waxyaalaha islaamka wax uga sheegaya waxaa ka mid a xaasaska fara badan markay soo gelayaan waxay ku andacoodeen oo sheegteen xaasaska faraha badan in oo islaamka kaliya, dadka islaamka aaminsan kaliya ay guursadaan xaasas fara badan. sidoo kalena xaasaska faraha badan ay ku faafaan dadka maaragtay dowladaha dambeeyo aan maaragtay yani horumarka lahayn. su-aashaas jawaabteeda haddaan ka jawaabno, hadalkaasi waa hadal been cad ah. taariikhda ma soo marin dad aan yani dowlado aan xaasas badan ka dhex dhicin lama soo arag. xataa diintii nabi muuseyse kasoo dhicin oo yahuuddana xaasas fara badan aaminsan. kirishtanka laftigooda ayaa maaragtay aan daliil cad oo cadaynaya xaasas fara badan inaan la ogolayn aan masiixiyiinta laga hayn, bal qaarkood kaniisadaha qaarkood masiixiyiintooda reer afrikaanka waa u ogolaadeen inay xaasas fara badan guursadaan. marka islaamka ka hor waxaa intaa xaasas fara badan ay kasoo dhacaysay dadkii hore oo waxa weye carabtii jaahiliga aheeda xaasas fara badan lahaa, cibriyiintii ayaa xaasas fara badan lahaa, ummado badana xaasas fara badan lahaa. waxaan soo qaadanaynaa qur-aanka shuraaxdiisa tafaasiirta culummada islaamka markay ka hadlayaan waxay sheegaan nabiyullaahi daawuud inuu 100 xaas ku dhowaad uu lahaa, nabiyullaahi sulaymaanna qaarkood ay sheegeen 1000 xataa xaas inuu ku dhowaad lahaa. aduu tafaasiirta ku kala duwan yihin, qaarna ay leeyihiin nabiyullaahi sulaymaan 100 xaas lahaa. calaa kulli xaal waxaa axaadiidta saxiixa ku soo aroortay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam, xadiidta bukhaariga muslimka ah oo le caawey waxaan u tegayaa oo u galmoonaya 100 xaas oo xaasaskiisa ka mid a. riwaayo qaar 99 qaar 70 qaar 90 ay yidhaahdeen 100 xaasan u tegaya caawa oo mid kasta ahi dhasha wiil ilaahay dartiis ku jihaada. marka insha allahudi uu inta halmaamay uusan markaas aysan hal xaba ay walad jeexiis ay dhashay. marka arrimahaas waxay caddaynayaan xaasaska faraha badan inaan islaamku bilaabin, laakiin islaamku ayagoo jira uu inta yimid uu hagaajiyey oo nidaamiyey oo tartiibiyey ayay caddaa. marka arrintaasi waa been cad iyo andacosho oo cad weeye. islaamkana kuma gooni ahaan, islaamka waa ka horeysay. islaamku shuruud ayuu u xiray, islaamku waaba yareeyo 4 kaliya ayuu ku ekaysiiyey. marka taas waa been cad. marka been cad hadday wuxuu tahayna qofka caqligale waa fahmi karaa. ambiyadii waaweyneed oo dhan ayaa xaasaskaas faraha badan guursanaysay sida halkaas maaragtay ku cad waayahay. oo nabiyullaahi ibraahimba u laabo diimaha dhan hadda haddaan u laabano, nabiyullahi ibraahim yahuudi iyo kirishtankii iyo islaamka intaba nabiyullahi ibraahim u abtirsadaan. nabiyullahi ibraahima xataa 2 xaas lahaa. marka waa muuqataa marka arrintaas in aysan hadday ilbax yihiin nabiyullahi ibraahim ay aaminsan yihiin saara iyo haajara ayay wax ka sheegi lahaayeen. marka wayse fahansaneen waxa ay leeyihiin ayaa meesha ka baxsan. qodobka labaad islaamka waxooga sheegayan waxa weye waxay leeyihiin xaasaska faraha badan
waxay dan u tahay shahwada ragga oo shahwadooda badan meelay ku gutaan, waxayna bahdil u tahay karaamada iyo sharafta gabadha iyo xuquuqdeeda oo la dulmiyo. sidoo kale waxaa meesha ka baxaysa mabda'ii sinaashaha ee sida gabadhaba ninka keligeed ay ugu joogayso in ninkana keligiisa ay ugu joogto. arrintaas waxaan ka soo hadalnay inaan xaasaska faraha badan uusan u ahayn bahdil gabadha. waxaan soo sheegnay haddii gabadhii maalanba ay xanuunsato, haddii gabadhii aysa ilmaba dhalayn oo dhaafto inay ilmo dhasho, xilmo ay ilmo dhasho iyo qodobo kale oo fara badan. gabadhaas marka ninkiina uu raba inuu ilmo helo, inuu gabadhaas inta iska furo uu mid ilmo dhalaysa guursado, leera hal xaasaa lagu ogolaya mid ilmo dhalaysa guurso, inuu iska furo yiraahdo hal xaasan guurso karaahe adigu iska tag mid ilmo dhalaysaan rabaa, iyo inuu ayadii haysto xuquuqdeedii oo dhammaystiran uu siiyo, mid kalena uu guursado ilmo uu ka dhalo xuquuqdeedana uu siiyo yaa fiican. waxaa muuqata gabadhaas in oo duruuf kastoo ku timaada ama ilmaha dhali weyda ama duruufo kaloo aysan oga soo bixi karin ninkii xuquuqdiisi iyo waajibaadkiisi hadday ku timaado in ayadana la qabo xuquuqdeedii oo dhammaystiran la siiyo, intaasoo jeer ka fiican in lala guursado, in la furo keligeed banaanka la dhigo oo nin kasta ha yiraahdo anigu mid ilmo dhalaysaan rabaa. dhanka kale waxay sheegteen oo yidhaahdeen guurka xaasaska faraha badan wuxuu keenayaa dood iyo khilaaf iyo qoyska oo isqabqabsada, iyo markastaba dood iyo isku dhac faraha badan. taas marka waa jirtaa in oo guurka faraha xaasas badan markii la helo uu khilaaf iyo doodi ay jirayso, laakiin mar kastaba waxaa la ogaanayaa sida ninku hadduu xaas badan guursado gabar ay yani ugu noqonayso dood iyo dhibaato iyo naxdin ay ugu noqonayso, mid kale farxad u noqonaysahoo midda la soo guursado dambo aan ninka haysan banaanka ku dayacneed, cid xuquuqdeeda oofisa aan haysan, cid dejisa aan haysan, lamaano aan haysan, awlaad aan haysan, midaasay farxad u tahay. marka markastaba yani maslaxada loo jideeyo guurka markii la eego faraha badan, yani laba maslaxa haddii ay laba shay hadday iska hor yimaadaan, dhibaato iyo farxad haddii ay iska hor yimaadaan, ama maaragta maslaxa iyo mafsada hadday iska hor yimaadaan, markasta tii weyn laga carara tan yara lagu dhaca. markaas qofkaas ayaa la fiirinaya duruufta uu u guursaday. waxaan soo sheegnay marka islaamku inuusan ihaano u ahayn gabadha guurkeeda, guurka faraha badan inuusan islaamku u ahayn, ihaanana aysa ahayn, gabadha yani xuquuqdeedii in loo oofiye ay tahay, cadaalad ay tahay, islaamkuna uu nidaamiyey. dadka oo ku andacoonaya waxyaalahaasna ay boqolaal gabdhood ay la seexdaan, ay ilmo ka dhalaan, ilmaheedii ay ku dayacaan, ay saaxiibtinimo uga dhalaan, ay gogoldhaaf uga dhalaan, ilmahaas ay ku dayacaan. gabadhaas gaal fareenka ah ee aan meher lahayn, ee aan guri lahayn, ee aan xuquuq lahayn, ee awlaaddii lala korinayn, ee awlaaddii lagu rabin, iyo ilmahaas aabala-aanta laga dhigay, xuquuqdoodii ma u doodaan marka ay u doodayaan. xataa dowladaha qaarkood ilmaha sharci daradaah ay xaddhaaf yihiin, marka ilmahaas saas loo dayacay, gabdhaha ilmaha laga dhalay oon aan nin haysan, saaxiibka uu ka dhalay, ma u doodaan xuquuqdooda. marka midda xuquuqdeedii kuwa la siiyey ee loo ogolaaday guri in la dejiyo, meher la siiyey, beel la siiyey, ilmihii aabba leeyihiin, si sharaf iyo sumcad ku nool markay u doodayaan, tan ma u doodaan haddii ay run sheegayaan. midda kale islaamku shardi wuxuu ka dhigay cadaalad oo gabadha karaamadeeda si loo ilaaliyo waa in mid kasta cadaalad saxa lagula dhaqmaa, sida aayadda qur-aanka aan soo sheegnay oo fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida ilaahay uu leeyahay, haddii aad ka baqdaan inaan cadaalad samay hal xaba guursada. nabigeennana uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, man kaanat lahum ra'ataani famaala ilaa axadihima jaaa yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'il. qofkii laba xaas leh ee mid ka mida u leexdo u bato halkaas yani u bayra, maalinka qiyaamo wuxuu yimaada asagoo dhinaciisu qalloocan yahay. marka waxaan niri xalal fara badan oo 20 qodob ka badan ayaa islaamka uu u jideeyay guurka faraha badan in la sameeyo ee iskama jidayn. waxaa xaqiiqo ah in gabdhaha maalanba haddii duruuftu keento mararka qaar ka mid a haddii dumarku bataan, sidii waqtiyadii dagaalkii labada adduunkii kii koobaad adduunkaba dhacday, markii raggu ay dowlado qaar ka mida yaraadeen, in oo gabdhahaas dheeraadka la guursadahi
waxay kun jeer u khayr badan kun jeer ogana khayr badan in gabadhii ay weydo wax u naxariista, wax guursada, wax xuquuqdeeda dayaca, in ninkii hal xabo iska haysta kuwa kale banaanka iska yaalaan, markaas ay faafayso yacni akhlaaq xumadii ay faafaysa, gabdhihii jirka ka ganacsadaan, cuduradii ay faafayaan, gabadhii aysan helin farxad, qaar ka mida ay helayaan kuwo oo marmar u galmoodo oo sharci daraa, qaar ka mida ay wadada la taagan yihiin si ay u dareensiyaan inay galmo u baahan yihiin, qaar ka mida ay meelo jirkooda uga ganacsadaan ay furteen. waxaasoo dhan islaamku waxa weeye xal ayuu u raadiyey. marka dadkaas jawaabtoodii meel saxa ma aysan helin. islaamku wuxuu jideeyey xuquuqdiina in lala yimaado, ilmihii la tarbiyeeyo, tarbiyo wanaagsan iyo akhlaaq leh la tarbiyeeyo ayaa islaamku jideeyey. masayrka haddaan u eegno, masayrka waxyaala fara badana keenaya oo gabadhaas hadda maalanba tan hinaastay ama masayrtay inay tahay jacaylka faraha badan oo ninkeeda u qabto, qaarkood ay la masayrayaan, qaar ay anaaniyo iyo ay tahay keligeed noolaato ay rabto inay ayada kaliya noolaato oo ay cid kale aysan waxu ogolayn, qaar ka mida ay tahay mustaqbalkeeda u cabsanaysa waxa isle hadii lagula guursado ama yacni lagaa badiyo ninka lagaa kaxaystaa, qaar ka midihii ay u masayrayaan kaliya dumar kale ayagoo ka cabsanaya oo isleh dumarka kale ayaa wax kaa sheegaya. marka waxyaalahaasoo dhan waa wax jira, laakiin haddana waxaa ka muhiimsan oo ka awood badan duruufta iyo yacni nidaamka loo jideeyey maaragtay guurka faraha badan. haddaan intaas ka gudubno, waxaan niri ma ahan islaamka kaliya cidda taqaanay xaasaska faraha badan. waa soo sheegnay in ilaa ambiyadii hore ay ku jireen, islaamku waa nidaamiyey. hadda waxaan soo qaadanaynaa dad reer galbeedka ka mid ah, weliba dad qoraayaal ah, weliba dumarna ah, sida ay u ictiraafeen oo u caddeeyeen maaragtay yacni maaragtay guurka faraha xaasaska badan oo la guursadaahi, oo raggi qayb ka mida inay xaasaska badsadaan, in xal ummadda ugu jiro. gabar oo qoraa aheedoo waddankan ingiriiska kasoo jeeday, hadalladeedi waxaa ka mid ahaa, waxaa farabatay gabdhaheenna cararaya oo guryihii ka cararaya, dhibaatadii ayaa nagu habsatay, waxaana yaraaday dad arintaas baaray. haddii aan ahay haweeney gabar oo aan arintaas fiiriyo gabdhaheenna haysata, qalbigaygu waa dildilaacaya, anigoo u turaya iyo murug ayuu la dildilaacaya. laakiin kurbadayda iyo walwalkaygu muxuu faa'iideynayaa iyo xanuunka i haystaahi. arintaasi waxay leedahay cid oo xal u keentay ma jirto, laakiin waxa weeye waa in la helaa xal. xalkaasna waxaa sheegay leedahay ninkii caalimka ahaa ee la dhihi jiray thomas, waa nin oo gaalaho ayaga ka mid ahaa. waxay leedahay ninkaasi fainahu ra'a daa'a wawasafa lahu dawaa'a alkaafila lishifaa. ninkaas thomas la yiraahdo waxay leedahay wuxuu arkay cudurka, wuxuuna u qoray daawadii lagu bagsa lahaa. u fiirso, cudurku arkay daawadii lagu bagsa lahaana u arkay. gabdhahaas cararaya oo sharci darrada loogu galmoonaya, ilmaha sharci darrada keenaya, cudurka waxa ay uga bixi lahaayeen ee raggaas ajnabiga ah oo aan qabin iskugu dhiibayaan, waxay leedahay gabadhaas ninkaa thomas leera wuxuu soo jeediyey alibaaxatu lirajuli atazawuja biakthar min waaxida, in ninkii loo banneeyo inuu guursado hal xaas ka badan. marka waxay leedahay arrintaas ayaa dhibaatada nagu habsatay ku baaba'i kartaa. gabdhaheedununa waxay noqon lahayn gabdho guryo wada haysta, ilmo wada haysta, ilmo korsada. marka waxay leedahay falbalaa'u kula albalaa fi ijbaari rajuli اlurubiy cala aliktifaa'i biimra'atin waaxida. u fiirsa gabadha hadalkeeda, waa idin sheegi doonaa meesha arrintan ku taallo. balaayo oo dhan iyo musiiboo dhan waxay nagu qabsatay tiri markii ninkii yurubiyaanka ahaa ee reer yurubka ahaa lagu qasbay hal islaan inuu ag fadhiyo ku kaaftoomo. fahada taxdiidu huwa aladii jacala banaatina shawaarid. arrintaani waxa weeye waa kan gabdhaheenna ka dhigay inay wadooyinka ku cararaan, inay niman raadiyaan, inay meelahaas adagoo warshadaha inta ka shaqeeyaan ayna ku dhibtoodaan. waxa weeye haddana ay nimanku halkaas ku ballansadaan oo ay ugu galmoodaan. arrintu marka waxay leedahay waa kasii daraysaa haddii aan nimanka loo banayn hal xaas ka badan inay guursadaan. hadalkeedu waa dheeraa gabadhaas. marka taas waa hadalkeedu waa sidaas, waa sheegi doonaa meesha arrintan ku taalo.
sidoo kale gabar kale ee qoraaheedu ingiliishka ah wadanka ingiriiska ah ayadana hadalkeeda waxaa ka mid ahaa gabdhaheennu inay ka shaqeeyaan guryahooda inay ka shaqaystaan sidii ayagoo qaadimyaalkii oo kale ah oo guryahooda ay ka shaqaystaana uga khayr badan oo guryahooda joogaan oo loo shaqeeyo ninkii u soo adeego uga khayr badan ogana fudud dhibaatada ah inay warshadaha iyo meelaha adadag ka shaqeeyaan oo gabadhii ay kusoo wasaqoobayso nolosheedii iyo quruxdeedii iyo farxaddeedii ay ku baaba'ayso markaas waxay leedahay u fiirsa gabadhaas alaa layta bilaadana ka bilaadi lmuslimiin fiiha alxushma waalcafaafu waatahaara waxay leedahay alla hognay ma wadankeenu maxay u noqon waayeen wadamadeenu sida wadamada islaamka oo kale ee xishmada iyo dhowrsanaanta iyo dahaarada wadahaaratu rid-un ay dahaaradu tahay yacni go iyo astur gabadhii qofkii shaqaalaha ahaa xataa uu ku nool yahay farxad marka waxay leedahay gabadhaasi waxay leedahay arintaas inaan ku noolaano aan nooga fiican dhibkan maantana haysta markaas waxay leedahay nacam inahu lacaarun calaa bilaadi اlingiliis an tajcala banaatina mathala liradaa'il bikahrati mukhaalaطati الrijaal waa ceeb wadankan ingiriiska in oo gabdheheena ay ka dhigeen wanaha ay ku wasaqoobeen oo yani ay u baahiyeen inay dhex galaan raggii oo dhex qaadaan oo waxa weye gabadhii iyadoo nolosheeda raadinaysa taas waxay leedahay marka waxay majeersatay gabadhii in gurigeeda iska joogto ee loo soo shaqeeyo meeshay warshadaha iyo howlahaas adag ay maaragtay ku jiri lahaayeen famaa baaluna laa nascى waraaءa ma yajcalu اlbinta tacmalu bima yuwaafiqu fitratiha aطabiiciya min alqiyaami fi lbeyt maxaa nagu dhacay oo aan ugu dayweyna ragga in ay shaqadooda qabsadaan yani gabdhuhu inay gurigooda joogaan oo gurigii wixii ilaahay u abuuro ah guriga inay ka shaqayso inay maaragtay u istaagaan wa tarki acmaali lirijaali salaamata lisharafi aan raggana shaqadooda u dayno si gabadha sharafteedu ay u nabad gasho sidoo kale gabar kale oo qoraa ah oo ingiliisha isla ingiriiska ah waxay leedahay waxa weeye isdhexqaadka gabdhaha iyo raggu ay isdhex qaadeen ee raggu ay rabaan waxa weeye gabadhii waxay damcaysaa waxa fitradeedii iyo abuurkeedii ka duwan mar kasta oo waxay leedahay wa calaa qadri kahrati اlikhtilaati takunu kahratu awlaadi zina mar kasta oo ragga iyo dumarka oo ay isku dhex jirkooda ay bataan ilmaha wacalada ayaa badanaya leedahay u fiirso marka balaayadaasaa nagu habsatay leedahay oo gabadhii ku habsanaysa ninkiina gabaru iska jeclaanayaa markaasuu uureynaya waa ka tegayaa halkaas ayay markii ay gabadhii unta uureeyo sharci darro ku uureeyo ayay meeshaas iska gagadoomaysa iyadoo dhiban oo wallaca oon biil lahayn oo xuquuq lahayn wax danaynayana aysan jirin dhanka kalena waxaa ka dhalanaya leedahay dhibaatoo dhan ayaa ku habsanaysa markaasay gabadhi waxay noqonaysaa wax oo qaab daran oo ahlu shar ah oo jirkeeda ka ganacsanaysa aan ogeyn xataa nafteeda waxay ku samaynayso markaas waxay leedahay faama adullu waalcaaru fa ayu caarin bacda hada war ceebta iyo dulliga tan ka daran waa tee wa ama almowtu fa kathiiran ma tabkhacu lmar'atu nafsaha bilintixaari wغayr ama dhimashada haddii la eegana imisa waxay leedahay gabdhuhu ay isdilaanoo intixaar sameeyaanoo naftooda ay dilaan ayagoo maaragtay markii sharci darro lagu uureeyey halkaas ilmihii looga tegey oo aan wacalo ah arintaas hadda qisa aan soo qadanay kitaabo badan ayay ku qoran tahay waxaa ka mid a tafaasiirta soo guurinaysa arintan oo soo turjumay tafsiirka leeraha tafsiir ulmanaar waxaa kaloo ka mid a tafsiir ulmaraaqi labadaba waa ugu laabo kartaan qisadaas iyo dhacdooyinkaas ayagoo intaan ka faahfaahsan kelimada ugu dambaydoon rabna mawduucan inaan kusoo xirno kii mawduuci ahaa rag badan maxaa loogu ogolaa waa gabadha dib aan u dhigaynaa kama gaari doono casharka waan ugu batay kelimada aan kusoo xirayna waxa weeye guurka in oo xaasas badan la guursado duruuf ayaa keentay ilaahay uu u ogolaaday macnaheedu ma ahan inay yihiin amar ilaahay uu amray tusaale haddii aan soo qaadano maalan ba ninkii inuu hal xaas guursado ee uu halkaas xaas iska joogo ee dumar fara badan ay niman la-aan noqdaan oo weligood aysa arkin sidaas ay ku duqoobaan oo noloshooda saas farxad la-aan ku noqdaan waa qodob dhici kara in ninkii hal xaas uu guursado xuquuqdeeda uu siiyo
boqolaal kalena uu la saaxiibo hoos uu uga macsiistana waa wax dhici kara. in ninkii uu xaasas badan guursado ilaa 4 iyo intii yacni kale loo ogolaaday uu guursado oo gabdhihii oo dhan niman ay wada helaan xuquuqdooda u qumana waa wax dhici kara. marka islaamku wuxuu doortay in gabdhaha dhan ay guur wada helaan ee ragga intii awoodaa xuquuqda kasoo bixi kartaa ay hal xaas ka badan guursadaan ilaa 4. laakiin in oo ninkii hal xaas iska haysto gabdho fara badanna aysan niman helin, iyo ninkii inuu hal xaas iska haysto boqolaal kalena uu ka zinaysto saaxiib iyo si kale uu ugu galmoodo, islaamku arrintaas waa diiday waana ka hor istaagay, waa uu joojiyey. dhanka kale waxyaalaha ka dhalanaya khilaafka ah laleeyahay guurka faraha badan waxaa ka dhalanaya ilmihii oo isnaca iyo xaasaskii oo isnaca iscolaad, waxaa lagu xali karaa tarbiyo, waxayna ku xiranta arrintaas ninka raganimadkiisa iyo dadnimadkiisa iyo ilmihiisa sida u tarbiyeeyo iyo asaga laftigiisu xuquuqda sida uu ugu istaago ayay ku xiran tahay. muxaadaradeena soo socota waxaan uga hadli doonaa, ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala mowduuc muhima oo ah maxaa loo diiday gabadhu in ay rag fara badan guursato. haddiiba ninkiiba loo ogolaado xaasas badan inuu guursado, gabadha lafteeda niman badan maxaa loogu diiday? waa muxaadarada inteeda horaan ku qaadan doonaa. waxaan kaloo uga hadli doonaa masale kale oo muhiim la isweydiiyo, ninka muslimka maxaa loogu ogolaaday gabadhii ahlu kitaabka ahada yahuudda ama kirishtanka inuu guursado, gabadha muslimadaasa loogu ogolaa waayey inay guursato nin ahlu kitaaba. labadaas muxaadaradeena soo socotaan ku faahfaahin doonaa insha allahu tacala. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.